dib u dhaca Soomaaliya ka jira qaybta ay saxaafadda ka qaadatay Soomaaliya dib u dhac ka jira ee saxaafadda kaliya ma lahan dambiga waa la wada leeyahay qaybta siyaasadda saxafiyiinta tujaarta waa laga wada qayb qaatay Soomaaliya horumar ay gaari weyso waxaas saxaafadda kaalin ku lahayd intay doontaa la ekaato kaalinta saxaafadda ee ku lahayd dib u dhacaas waxaa qayb ka qaatay sharuurka ay qaataan sababtoo ah haddii ninka saxafiga ah uusan wax ka qaadan ninka siyaasiga ah wuxuu wax u gudbinayaa asigoo gudanaya waajibkiisa ummadda darteedna u shaqeynayo laakiin ninka saxafiga haddii uu ninka siyaasiga ka soo qaato $100 wuxuu sheegayaa siyaasiga wuxuu rabay anna saxafiya ahay waxa uu tagayaa siyaasi kale $100 ka soo qaadanaya labadan siyaasi isma rabaan Soomaa aniga ninkaas u waramaya adna ninkaas u hadlaysaa kadib hadalkii bulshada ku dhacay muxuu noqonayaa hadal iska soo horjeedo maxaa sii badanaysa marka mushkiladii iyo dhibaatadii ka jirta Soomaaliya saxaafadda Soomaaliya qaybta ay ku lahayd burburka iyo dib u dhaca Soomaaliya waxa asaas u ah sharuurka la qaato thumma aqoon yarida saxafiyiinta qaar haysata